السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دعوة الكسر وهذا برامج كعيارها إنه كأي دونه سوق كلا يبسجا ينادي ذا قارسي قدرين يعني إنه أسوي يبسدان عيارها إنه إلى صو شرطان العيارات كصوص عضي بالعمد دونه بش أغسطس ناديga kubadda cagta ee Arsenal hadii ay ku bilowno Arsenal ayaa qoodareynaysa inay la soo saxiixato dhowr ciyaaryahan ayuu wada hadal kula jirto kooxda kubadda cagta ee Manchester City si ay ula soo saxiixato ciyaaryahanka lagu magacaabo Gabriel Jesus kaas oo kooxda Arsenal u soo wareegi doono qiimo lagu qiyaasay 40 milyan ilaa iyo 50 milyan oo pound wararka ayaa sheegaya in kooxda Arsenal iyo kooxda Manchester City ay heshiis safgarad ah oo afka ay ka gaareen ciyaaryahanka lacagta lagu iibsan lahaa sidoo kale ciyaaryahanka ayaa la sheegay inuu diiday dalab kaga yimid kooxda kubadda cagta ee Tottenham oo isagoo daneynaya inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Arsenal maadaama ciyaaryahanka u ciyaara kooxda Man City ee lagu magacaabo Gabriel Jesus oo aad ugu dhow yahay ciyaaryahanka hore kooxda kubadda cagta ee Arsenal Edu ayaa ah directorka Arsenal ama agaasimaha xagga sportska ee kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayuu ka faa'iideysanaysa ciyaaryahankan reer Brazil oo ciyaari jiray kooxda Arsenal waxay doonaysaa in ciyaartoyda u dhashay waddanka Brazil ay inta badan aad u daneynayaan inay isaga kala hadlaan qorshaha naadiga iyo waxa ay damacsan yihiin inay mustaqbalka ay sameeyaan ciyaaryahanka Gabriel Jesus ayaa ku qancay baa la sheegay in kooxda kubadda cagta Arsenal uu ku soo biiro waxaa la sheegay kaliya inay tahay goorma ayaa lagu dhawaaqi doonaa ama goorma ayuu heshiiska dhici doonaa kaliya kale kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa qoodareynaysa ciyaaryahan kale ee lagu magacaabo Rafinha shalay ayay ahayd markii kooxda kubadda cagta ee Arsenal dalab u dirtay kooxda kubadda cagta ee Leeds United si uu la soo wareegto ciyaaryahanka reer Brazil ee Rafinha xidigan reer Brazil ee Rafinha ayaa doonaya inuu ka tago kooxda kubadda cagta Leeds balse dooqiisa koobaad waa kooxda Barcelona waxaa la sheegayaa Barcelona inaysan awoodin qiimaha ciyaaryahankaasi inay iibsato balse kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa la sheegay shalay inay dalab ka gudbisay ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta ee Leeds Rafinha balse laga soo diiday dalabkaasi walaakiin warar soo baxaya maanta ayaa sheegaya in koox kamid ah kooxaha Ingiriiska ay dalab kala gudbisay lama yaqaan kooxday tahay inay kooxda Arsenal tahay inay tahay koox Tottenham oo iyadana daneynaysa iyo Chelsea oo sidoo kale daneynaysa kooxday tahay lama yaqaan laakiin koox Ingiriis ka tirsan ayaa dalab ka gudbisay baa la yiri ciyaaryahanka kooxda Leeds ee garabka midig kaga ciyaaray la yiraahdo Rafinha Barcelona ayaa dalab ka gudbisay ciyaaryahanka lagu magacaabo Robert Lewandowski oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich Lewandowski ayaa u sheegay Bayern Munich inuu jecel yahay sanadkan inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa gudbi doonta dalab 35 milyan oo euro si ay ula soo wareegto ciyaaryahankaasi kooxda kubadda cagta ee Manchester United iyo kooxda kubadda cagta ee Brentford ayaa ka war sugaya jawaabta u dambaysa oo bixi doona ciyaaryahanka lagu magacaabo Christian Eriksen ayaa u soo ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Tottenham sidoo kale wuxuu u soo ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Inter oo kula soo guuleystay horyaalka waddanka Talyaaniga kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa daneynaysa inay heshiis la gaarto ciyaaryahanka Paul Pogba ayaa si xor kaga tagay kooxda Manchester United sidoo kale heshiisyada dhacay waxaa kamid ah Sadio Mane ayaa ku biiray kooxda kubadda cagta Bayern Munich sidoo kale ciyaaryahanka Romelu Lukaku ayaa ka tagay kooxda kubadda cagta ee Chelsea isagoo ku noqday kooxda kubadda cagta Inter Milan waad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkan fadlan haddii aad ku cusubtahay channelka saar subscribe like saar si uu sii gaaro asxaab aad u fara badan